السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن سلام يا دمان أصحابك كوحدان channelka فايدة ميديا ملك كسوتين أدونك فضلا أدي channel كان كعصب تهاي نقص بير وسبسكرايب لايك and share أدي هورن اللي شوكتين لايك and share قرأ إن شاء الله. ما أنت ساد كارك سامبا qoraalka mawduucan wuxuu ku saabsan yahay Mahathir Mohamad waa dhakhtarkii daaweeyay dhaawacii dhaqaale iyo bulsho ee dalkiisa. Ayaan ka sheekeyn doonaa sheekadiisii nololeed iyo taariikh nololeedkiisii. Mahathir yaraantiisii waxa uu yimin jiray quraac iyo muuska si uu u kabo dakhliga qoyskiisa oo aad u hooseeyay. Mahathir Mohamad waalidkii kaalinta uu wiilkoodu ku leeyahay la kifaaxidda duruufaha adag ee saboolnimada ma ay ilowsiin in ay waxbarashada kula dadaalaan. Waxa uu ahaa arday madaale ah taasoo ku yimaanaysay barbaarinta aabihii oo ku dhiirigelisay waxbarashada iyo in aanu marnaba waqti badan gelin waxaan waxbarasho ahayn. Gelitaankiisii dugsiga sare waxa uu afka Ingiriiska keenay dhibco aad u sareeya oo u suurtageliyay in uu galo dugsiyada afkaas ku baxa, taasoo sabab ah inuu afka Ingiriiska yaqaanay ama si wacan u bartay. Dagaalkii labaad ee adduunka, gaar ahaan markii ay Japan qabsatay dhulka Malaysia, waxaa la xiray dugsiyadii waxbarashada oo dhan. Mahathir ma uu fariisan ee waxa uu bilaabay dadaal shaqo, gaar ahaan ganacsigii hoose. Waxaanu iibin jiray bunka, muuska iyo cuntooyin fudud. Dagaal weynihii kadib waxa uu dib u sii ambaqaaday waxbarashadii dugsiga sare kaga joogsatay. Waxaanu dugsiga sare kaga qalin jabiyay dhibco aad u sareeya, gaar ahaan maadooyinka sayniska, taasoo u suurtagelisay in uu galo jaamacadda caafimaadka oo la oran jiray King Edward College of Medicine oo ku taalay Singapore, iminkana loo yaqaano jaamacadda qaranka Singapore. Inkastoo uu bilowgay jaamacadda caafimaad ka hor soo dhigtay kulliyad ku taala degmada uu ku dhashay oo lagu magacaabi jiray Sultan Abdulhamid. Sanadkii 1953 ayaa Mahathir Mohamad ka qalin jabiyay jaamacadda King Edward College oo uu ka qaatay shahaadada caafimaad ee loo yaqaano MBBS oo ah cilmiga dhakhtarnimada iyo qalliinka. Shahaadada jaamacadda caafimaadka guud iyo qalliinka oo magaceeda loo soo gaabiyay MBBS waxaa laga keenay ereyada Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Waa darajo waxbarasho oo isugu jirta caafimaad guud iyo qalliin, waxayna inta badan qaataa ardayda caafimaadka ee 5 ilaa 6 sano jaamacad dhigta. Jaamacadaha raaca nidaamka soo jireenka ee Ingiriiska waana shahaado koowaad ee dadka barta dhakhtarnimada, waxaana u dhigantaa shahaadada doctor ee af Ingiriiska lagu yiraahdo Doctor of Medicine, loona soo gaabiyay MD oo ah darajo mihnadle dhakhtarnimo ay bixiyaan jaamacadaha raaca nidaamka waxbarashada ee Mareykanka. Intuu waxbarashada caafimaad ku jiray, Mahathir waxa xul jacayl la dhexmaray Siti Xaasima Maxamed Cali, gabadha dhaho ay kulliyadda caafimaadka wada tirsanaayeen. Waxbarashada kadib waxa uu bilaabay dhakhtarnimo kaga shaqeeyay hay'adaha caafimaadka ee dowladda. Laakiin sanadkii 1956 waxa uu bilaabay inuu iskii uga shaqeeyo mihnadiisa caafimaad. Xarun caafimaad ayaanu ka sameeyay degmadu u dhashay Alloro Sitter la yiraahdo. Isla sanadkii waxa uu guursaday Siti Xaasima oo gabadhii jacaylka la wadaagay. Mar dambe ayaa Mahathir Mohamad dib ugu noqday fasalada waxbarashada. Sanadkii 1967 ayaanu jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ka qaatay takhasuska xiriirka caalamiga ah. Mahathir Mohamad waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda ama dhiig ku leh isirka Malaayiga ee dhakhtarnimo kaga shaqeeya Malaysia. Isirka Malaayiga waa dadka degan Malaysia.
weliba waxa uu noqday dhakhtar aada loo jecel yahay. Maalgelin badan oo uu ka helay ganacsato badan oo soo dhaweeyey ayaa uu ku dhistay guri weyn, waxaanu maalgashaday ganacsiyo kala duwan. Mahathir Mohamad waxa uu dhalay 4 caruur ah, waxaanu korsaday oo aabbanimo ugu qoran 3 caruur ah. Qisadii dhakhtarkii daaweeyey dhaawacii dhaqaale iyo bulsho ee dalkiisa, Mahathir Mohamad, ayay ahayd taariikh nololeedkiisii iyo halgankiisii nolosha ee uu soo maray iyo dadaalkii dheeraa uu soo maray, taasoo ku dayasho mudan in qofka bini'aadamka uu aado yool iyo dadaal joogta si kasta ay danta iyo duruufuhu ay ula darsaan. maanta mawduuceennii sheekooyinkeenii xikmadaha iyo taariikh nololeedka ahaa intaasan kusoo gabagabeynaa. sheeko xigta waxaan ku kulmi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.